kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba waxa halkan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa qasaaraha ka dhashay weerarkii Israa'iil ay ku qaaday koonfurta Lubnaan faahfaahinadii u dambeeyay ee ka soo baxaya ayaa halkan kugu la wadaagi doonaa tirada dhimashada iyo dhaawaca Lubnaan oo war soo saartay ayaa halkan kugu la wadaagi doonaa waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doonaa Iiraan oo qaaday talaabo cusub isla markaana sheegtay inay bilaabi doonto duqeymaheedii bartilmaameedka kadib markii Israa'iil ay xabajoojinta kadib ay qaaday weerar culus ay ka fulisay gudaha dalka Lubnaan hadaba hanjabaada in Iiraan ka soo baxday ayaa halkan kugu la wadaagi doonaa xarunta shidaalka ee Imaaraadka oo xilligan duqeyn culus laga fuliyay iyo kula wadaagi doonaa qasaarihii ka dhashay xaaladda bariga dhexana waxay noqotay mid waji cusub sameysatay kadib markii ay heshiis ay wada galeen Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka faahfaahinadii u dambeeyay xaaladda bariga dhexe ayaa halkan kugu la wadaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena subscribe inoo dhegan baleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa qaaday talaabooyin cusub oo lagu adkeynayo ammaanka iyo xakameynta marinka istiraatiijiga ee Hormuz iyagoona ku dhawaaqay in markabka doonaya inay ka gudbaan marin biyoodka ay qasab ay ku tahay inay isticmaalaan biyaha u dhow xeebaha Iiraan go'aankan ayaa la sheegay inuu qayb uu ka yahay dadaalo ay Iiraan ay ku doonayso in ay ku maamusho dhaqdhaqaaqa maraakiibta ganacsiga iyo kuwa kale ee isticmaala marin biyoodka Hormuz oo ah marin muhiim u ah ganacsiga caalamka iyo sidoo kale shidaalka iyo badeecada kale iyadoona marin biyoodka Hormuz oo sidoo kale muhiimad gaar ah uu siinayo Mareykanka isla markaana uu gabi ahaanba in ka soo horjeedo in Iiraan ay maamusho balse ku jiray qodobadii heshiiska ay ka gaareen Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan inkastoo Mareykanka ee marin biyoodka Hormuz in la furo uu u yahay mid muhiim u ah maadaama halkaasi boqolkiiba 99.9 shidaalka halkaasi ay maraan wararka kale ee la helayo ilo kala duwan ayaa tilmaamaya in talaabadan ay saameyn ku yeelan karto isku socodka maraakiibta caalamka iyadoona laga cabsi qabo inay sare u qaado xiisada ka taagan gobolka iyo gacanka Cumaan saraakiisha Iiraan oo difaacaya go'aanka iyagoona ku dooday inuu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga qaranka iyo badbaadada marin biyoodka halka falanqeeyaal caalami ahna ay ku doodayaan in talaabadan ay keeni karto culays cusub oo dhinaca ganacsiga iyo sidoo kale siyaasadda ah marin biyoodka Hormuz ayaa ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ay isku hayaan Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan iyadoona Iiraan ay xooga inta badan ay saareyso marin biyoodka Hormuz isticmaalkiisa in iyada looga dambeeyo isla markaana ay dul dhigtay lacag markabka raba inuu isticmaalo halkaasi iyadoona go'aankaasi uu horay u aqbalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump balse ay ku tahay culays xoogan uu kala kulmayo isticmaalka marin biyoodka Hormuz xarunta shidaalka ee Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo yaqaano Al-Fujairah ayaa xilligan waxay tahay mid ololkeedu uu baxayo kadib markii Iiraan la sheegay gantaal dhinaceedii uu ka yimid halkaasi uu ka dhacay goobta maadaama ay ahayd goob shidaal waxa durba isqabsaday dab iyo olol oo cirka isku sii shareeray Iiraan oo saakay gudbisay hanjabaad culus oo ku aadaneed inay bilaabi doonto duqeymaheeda iyo sidoo kale weerarada tooska ayaa durba ka dhaweysay hanjabaadii ka soo yartay saakay durbana waxa ay gantaal ay la beegsatay Imaaraadka Carabta iyadoona halkaas xilligan uu ka dhashay qasaare kala duwan inkastoo Imaaraadka faahfaahin rasmi ah uusan ka bixinin gantaalka ka yimid dhanka Iiraan ee ku dhacay halkaasi qasaarihii ka dhashay balse wararku ayaa waxay sheegayaan in muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa laga dhex arki karay qasaaraha halkaasi ka dhashay maadaama qiiq iyo sidoo kale olol la arkayay oo cirka isku sii shareeray dhinaca kalena Lubnaan waxa ay shaacisay tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay duqeymihii Israa'iil shalay ay ka fulisay koonfurta dalka Lubnaan
wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa ku waramaysa in tirada dhimashada ee ka dhalatay duqeymihii shalay ee Israa'iil ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 200 iyadoona sidoo kale dhaawac ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 1,000. dhinaca kale wakaaladda wararka qaranka ee rasmiga ee Lubnaan ayaa ku warantay in ka badan 10 qof ay ku dhinteen duqeyn ay Israa'iil ka geysteen magaalo ku taala koonfurta Lubnaan. wakaaladda ayaa warisay in tirada dhimashada ee ka dhacday magaalada Al-Abasiya ee degmada Tayra halkaasina ay tiradii ugu badneed ay ku dhinteen sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee dalka Lubnaan. waxaa la soo tabinayaa in duqeymihii ee Israa'iil ay fulisay amaba ay ka fulisay gudaha dalka Lubnaan uu dhaliyay khasaare aad u xooggan. Iiraan arintaasi si aad ah ugu xumaatay iyadoona heshiiskii xabad joojinta ee 2 toddobaad la galay ay qayb ay ka hayeen in Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iilba aysan weerari doonin Lubnaan. qoraalka ay ku heshiiyeen Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan ayuu qayb ku ahaa inkastoo Israa'iil ay ka madax banaaneed heshiiskaasi xabad joojinta ay gaareen Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan. kadib markii xabad joojintaasi lagu heshiiyay muddo 2 toddobaad ah iyadoo aysan saacado ka soo wareeganin ayaa Israa'iil waxay qaaday talaabo culus oo ka careysisay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump maadaama ay ka kortalaabsatay heshiiskii uu Iiraan uu la galay durba ay jibisay saacad gudaheeda isla markaana weerar xoogan ay ka fulisay gudaha ee Lubnaan kaasi oo dhaliyay khasaare baaxad leh maadaama Iiraan ay ogeed xabad joojin kaliya isla markaana aysan sameynin wax ka hortag ah ee gantaalada ka imaanayay dhanka iyo Israa'iil balse Iiraan markaan waxay wacd ay ku martay in ay duqeymaheeda iyo sidoo kale weeraradeeda tooska ay bilaabi doonto isla markaana gabi ahaanba ay ka baxday heshiiskii xabad joojinta ee 2 toddobaad. waxayna sheegtay in bartilmaameedkeeda ugu weyn uu yahay Israa'iil iyadoona sheegtay inay xilligan u calaamadeysan yihiin goobo gaar ah isla markaana si gaar ah ay u bartilmaameysan doonto inkastoo aysan shaacinin goobaha xilligan ee bartilmaameedku ah Iiraan. xilligan bariga dhexe waxa uu noqday mid xaaladiisii faraha ka sii baxaysa maadaama xabad joojintii lagu heshiiyay ay ka dambeeyeen duqeymo ay isdhaafsadeen Israa'iil oo Lubnaan ay duqeymo ka fulisay Iiraan oo sidoo kale naftarkeeda duqeyn ay ka fulisay Imaaraadka Carabta. xaaladdu waxay noqotay mid waji cusub yeelatay iyadoo dadkii ku dhaqnaa bariga dhexe kadib markii ay soo yeertay heshiiska 2 toddobaad ay filayeen in xabad joojintan ay dhaqangali doonto isla markaana dagaalka halkaasi lagu soo afjari doono heshiisna uu dhexmari doono Israa'iil Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan balse xaaladii ay filayeen mid ka duwan ayaa saacado gudaheeda ku soo baxday iyadoo xilligan bariga dhexe uu qarku u saaran yahay in mar kale halkaasi uu ka qarxo dagaal ka duwan midkii bishii la soo dhaafay xilligan ka soconaya bariga dhexe iyadoona Iiraan xilligan ay la soo baxday hubkeedii sidoo kale diyaaradaheedii dagaalka. wixii xoogay macluumaad ku soo kordho muuqaaladeena xiga ay idin kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhig kambalelkana fursi ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo tahay muuqaalkana share garay like inoo sar soo gaar asxaab badan oo ku maansanta daawashadaada.